dadkan way aamini waayeen maalin kasta waxay ila soo hortaagan yihiin dembi ayaad soo gashay maxaa lagu xumeeyey dembigii markaan u sheegana waxay taagan yihiin waa dembiile xabsi waa inaa la geeya ummadan intee u fiican waayahay intee la geynaa waayahay ma roornaa markaa mase waa seexanaa aniga dembi ma soo gelin waxaan iska gawar maskiin waa la i gubay waa la i karaagsaday aniga gurigayga qababa iyo geedkaan harsanaayo waa aragnay haye amin aniga maskiin baan ahaa marka miskiintu dhib badanaa masaakiintu suko meelaha iska fadhiyaa maya aniga ma dulmi badneen miskiin baan ahaa aniga guri qabow iyo geed qabow baan kusoo dhaweeyay guri qabow si wanaagsan ayaan elaboorka ugu soo dhaweeyay laakiin asaga hadda ninkan hadda calaa kulli xaal sheekadii waxay ku soo ururtay miyaa lejan waad jeceshahay walaali maad raadsatid no wallahi lejan waad jeceshahay walaali waxaan looma dulqaadan karo ma jecli aniga ma jecli waan jeclaan jiray iglanay laakiin ooyaa waa jeclaan jiray haddaad jeclaan jirtay iminka waad jeceshahay haddadaasaad jeceshahay no ma jecli adduunka asaga u necbahay qofka ma liska jeclaada asaga qofku jacaylku ma laha nin xun iyo nin wanaagsan waqa jacaylku ma laha dee xaar baad jeclaanaysaa meel fadhiya ma laha waa nin wanaagsan iyo nin fiican ma jecli ma ninkaa waad jeceshahay midda kale adiga dhegeyso hal shaqaan ku haya aad u wanaagsan wallahi shaqaan ku haya wallahi astaan shaqo ka doono tiifiga astaan la yidhaa filmaanta turjuma walaali shaqo u raadso shaqo ma la iga hayaa haa wallahi tiifigaasaad shaqo u raadsanaysaa anaa tiifiga la hadlaya qalbi dhagaxa aad sheegaysay adigaa ah horta gabadh cadaadooy ma ihi qalbi dhagaxii aad tidhi aad ninkaa tidhi qalbi dhagax iyo qaradla iyo magacyadii intaba horta adigaa sababtoo ah gabadh aad u qalbi adag baa tahay xoog baawarka iyo buruudka halkay ka keentay wallaahi ma aaminsanami baawar inaan leeyahay may de indha adaygu xataa waa baaware adiga inaa ana indha adkaamaa dareemaysaa xoog mayal adagna waa tahay gabadh aad u mayal adag baa tahay gabadh adag oo mayal adag baa tahay dhegeyso waxaan kuu sheegay wareysiga qaybtiisii hore wiilkaas inuu ahaa qof intuu insaan yahay weligiis inuu wax itara maahana wax igama qaadin weligiis inuu ijeclaado maahana ima necen hadal walba hadalka oo ka naxariis badan yahay ayuu ii oran jiray haddii lay dhaho maanta dabiicadihiisa tilmaam waxaan ku tilmaami lahaa ragga ugu wanaagsan inuu ku jiro ugu naxariista badan jecel abuure inuu yahay dadka markay arkayaanna dabiicadiisa daacadnimadiisa ma qarsoomi jirin sidii xidigaha oo kale ayay u caddaayeen wiilkaas wuxuu ahaa qof wanaagsan waxaa ku soo beegay aniga oo qof xun ah oo si kasta inta yeelay waa jeclaan waaye marnaba ma isweydiisay adiga i daawanaayo ama iglanay wiilka sidaas u wanaagsan waaye ay gabadhaan xun ugu soo aaday waaye ay ilaa heerkaas ula gaartay asaga dembi ma hore usoo galay dilaamuu ahaa gabdho jecel muu ka soo tegay muxuu dembiyo geystay intaas oo dulmi ah in isaga laftiisa laga jarayay oo uga miisay ii sheeg waa macquul in laga jarayay marka aniga markii arrinta lajan aan soo bandhigay oon ka soo sheekeeyey dadku waxay isweydiiyeen maxaa dhacay
oo gabadhan sidaan u quruxda badan loo xumeeyey maxay tahay sababta gabadhan wanaagga intaas la eg bixisay loo xumeeyey dadka waxay raadinayeen inaan ahay gabar habaaran dadka waxay raadinayeen inaan nabsi hore usoo galay dadka hadda maxay ogaadeen wixii ay rabeen ayay ogaadeen wixii ay ila jeclaadeen ayay ogaadeen waxaan isku dayay dhowr mar inaan qanciyo dadka yes of course inaan ku iraahdo aniga wax dembiya ma aanan gelin aniga ma habaarni waalidkay ima soo habaarin mid dhintay iyo midka dunida saaranba qofna ima soo habaarin waxay iska soo jareen maya nafsi miyaa soo gashay aniga nafsi sooma gelin waxaanoo dhan waxaan idinkugu sheegay si aad adinka u qabowsataan si aad adinka u qanacdaan waxaan aan idiin daldalayay labadan habeen waxay ahaayeen been marka ma been baad aan kaa wareysanayne maanta oo dhan ما serious de ma been baan markaa maantana anaga kaa wareysan aan meesha u fadhinay la anaga been ma wareysanee iglan waxaan kaa codsanayaa wax yar 5 daqiiqo inaad dulqaad ii samaysid hadda maxaan dulqaad samaysaa filimkiiba been buu ama been baan maanta dhan u ooyiyo umraan dadkan wax alla waxay jeclaayeen aan u sameeyey waan ka dhaadhicin waayey aniga gabar maskiinaan ahay daacad baan ahaa gogol qabow iyo geed qabow baa ninkaygu soo dhaweeyey laakiin dab ayuu ku daaray way aamini waayeen siday jeclaayeen ayaan u sameeyey marka waxaan imika aan maantana meesha u fadhin ma been baa waa been Norway aniga dacwo ma ku imaanin maxaad ku timi hooyaday baa i keentay haye aniga Norway dacwo ma ku imaanin haye nin aan dacweeyana ma jiro weligay qof bida aadana xataa cirbad kuma aana mudin qalada ma lihi aniga haye wax man sameynin waxaan markaa hindigaad aad u qabataa maanta hindiga gabar waxaan ahaa caadi iska ah oo nolol noolmeedkeeda iyo ilmaheeda iska wadata beene bareysata maanta si u joogtay branki bay wallahi waxa qaxwad igaga yeersay sharafteeda qaaday wallahi waxa loo soo qoriyaa naagtii dhammayd barnaamijyada laga sugayay wax way maanta been fadhida wareysatay